بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku suganahay xerada BSF waxaan la wareegay hubkoodii ragga waa dhidibtirana waa wanaajinayna nimo talo inaa weeye waxaan leeyahay dadka soo qalday xadis saas ay daba soo leeyahay aaraad قولي قونيو ma tagan ma banaan ka baxay war degdeg ah Puntland ayaa guul weyn sheegatay inay ka gaartay weerar ay ku qaaday xerada BSF ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug taasoo ay markaasi dagaal saacado badan qaatay kadib in ciidamada Puntland ay si buuxda ula wareegaan guud ahaanba gacan ku haynta xerada BSF ee magaalada Gaalkacyo waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay cidda hadda xerada gacanta ku haysa halka ay ka baxeen ciidamadii BSF qasaaraha soo gaaray iyo maxaabiista markaasi laga qabtay ayaan faahfaahinta ku kula wadaagaya soo dhawow daawade muuqaalka like share aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhiibo haddii aad hore noola joogto waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran ee markasta hela wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga dagaal saaka 6 subaxnimo ka bilowday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug gaar ahaan xerada BSF oo ay weerar markaasi ciribula ku qaadeen ciidanka dawladda Puntland ugu dambeyn waxa goordhoweyd markaasi booliiska maamulka Puntland uu sheegay in la soo gabagabeeyay howlgal military oo markaasi lagu soo afjarayay sida hadalka ay u dhigaan maleeshiyad caqabad ku ah nabadda iyo xasiloonida dawladnimada Puntland maamulka Puntland waxay sheegeen lamihiisa ammaanka in howlgalkii uu guuleystay si buuxdana xeradii BSF gacanta loogu dhigay muuqaalo iyo sawirro la baahiyay ayaa muujinayay ciidanka Puntland oo xeradaasi si buuxda ula wareegay gacantana ku soo dhigay rag dhaawac oo ka tirsanaa ciidanka difaaca dawladda Puntland ee BSF oo iyagu sheegay inay ka baxeen safka Puntland kuna biireen dawladda federaalka Soomaaliya haddaba duulaankan waxa uu ahaa mid muddooyinkii ugu dambeeyaba si weyn markaasi loo hadalhayay isla markaana hadalhayntiisu ay noqotay mid sarreysa kadib markii Puntland ciidamo aad u fara badan magaalada Gaalkacyo ay ku daabushay ugu dambeynna saaka operationka ama howlgalkii loogu talagalay ee ciidanka Gaalkacyo loo geeyay ay si rasmi ah markaasi u fuliyeen dadku waxay isweydiinayaan ciidanka BSF haddii ay ogaayeen in laga awood badan yahay Puntland ay weerarka intaasi leeg ay qorsheysay maxay tahay sababta halkaasi ku haysay khasaaraha intaasi leeg in uu soo gaarana ay u doorteen BSF waxay isku haleynayeen ciidan dawladda federaalka Soomaaliya koonfurta Gaalkacyo ay ku diyaarisay oo ay doonaysay haddii la weeraro in iyagana ay soo galaan oo ay qayb ka noqdaan dagaalka laakiin ma dhicin ciidankii dawladda federaalka Soomaaliya hubkii loogu talagalay inay ku howlgalaan maalinnimadii shalay ahayd maleeshiyad dhinaca Galmudug ku sugan ayaa hubkaasi dhacay oo la wareegay dawladda federaalka Soomaaliyana waxa ay u muuqataa in maamulka Galmudug odayaashiisa dhaqanka ay diideen in ciidamo ka duulay dhinaca Galmudug ay qayb ka noqdaan dirirta Puntland dhexdeeda ka socota waxaana ay sheegeen in dagaalkaasi uu noqon doono mid labada maamul si toos ah markaasi u dhaxmara caqabadna ku noqda xasiloonida guud ahaan gobolka iyo magaalada Gaalkacyo Puntland hadda waxay sheegtay in howlgalkii ay soo gabagabeysay guul weyn ay gaartay maleeshiyadkii la soo afjaray xogaha iyo markaasi muuqaalada soo baxaya waxay muujinayaan ciidanka difaaca dowlad goboleedka Puntland qaybahooda kala duwan sida special police ciidanka BMBF daraawiishta iyo ciidanka sida gaarka u tababaran inay si buuxda markaasi ay ula wareegeen howlgalkan waxa ka qayb qaatay taangiyada dagaalka ee dowlad goboleedka Puntland oo muuqaalada ka soo muuqanayay kuwaas oo iyagu markaasi qayb ka ahaa weerarka duqeynta ee lagu qaaday xerada BSF bilowgii Puntland xeradan waxay ku ekeysay weerar iyo mawjado duqeymo oo aad u xoogan kuwaas oo ciidankii BSF ku qasbay inay xerada gabi ahaanba markaasi isaga cararaan inta badan waxaa la gubay difaacyadii xeradan iyo sidoo kale goobihii saadka iyo kaydka markaasi hubka ee ciidanka BSF ee xerada Gaalkacyo markaasi u yaalay waxaana taas ay keentay in ciidankii BSF gabi ahaanba magaalada markaasi dhinaca Galmudug ay uga cararaan waxa ku daba jira wali kuwa markaasi dhinaca duurka u cararay ciidamada difaaca dawladda Puntland waxaana ay sheegeen in gacanta ku soo dhigi doonaan oo ay soo qaban doonaan Puntland guul weyn ay markaasi ka gaartay qorshihii dawladda federaalka Soomaaliya iyo xiisadii ay doonaysay in gobolka Mudug iyo Gaalkacyo ay ka horiso waxay u muuqataa in saacado kooban maamulka Puntland uu ku soo gabagabeeyay sida xoga soo baxaya ay tilmaamayaan magaalada Boosaaso cabsi weyn ayaa ka jirta maamulka Puntland markii uu ka guuleystay ciidankii BSF ee ku sugnaa Gaalkacyo kuwii ku sugnaa Boosaaso heegan ay galeen dadka shacabka ah ayana markaasi fariimo u direen waxayna u sheegeen in dhammaan xerooyinka BSF ee magaalada Boosaaso dadka shacabka ah ee degan ay isaga guuraan